Kani waa xayawaanka loo yaqaano gaduudanaha. Gaduudanuhu waxa uu ka mid yahay boqortooyada xayawaanka ee loo yaqaano Animalia, gaar ahaan bahda laf-dhabarleyda kordhata. Sidoo kale waxa uu ka tirsan yahay bahda naasleyda Mammalia. Gaduudanuhu waxa uu ka mid yahay duurjoogta hilib cunka ah ee loo yaqaano carnivore, gaar ahaan nooca bisadaha falinaya, kuwaasoo ka mid ka yihiin haramcadka, libaaxa, shabeelka, iyo bisadaha dabjoogta ah. Bahda cilmiga saynisku waxay u yaqaanaan caracal. Asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa qaaradda Afrika, Bariga Dhexe, iyo bartamaha qaaradda Aasiya. Gaduudanaha waxaa afka Ingiriiska loogu yeeraa caracal, halka afka Carabiga loo yaqaano cinaaqul ard. Afkeena Soomaaliga waxaynu u naqaanaa gaduudane amase jiifa. Waxa uu leeyahay midab dahabi ah, lugo iyo dhego dhaadheer. Sidoo kalena midabka dhegihiisu waa madow. Culayska jirkiisuna waxa uu gaaraa 12 kilogaram, halka dhererkiisu gaaro 74 sentimitir. Gaduudanuhu wuxuu leeyahay 38 hidde-side. Cimrigiisu wuxuu gaaraa 10 ilaa 18 sano. Waxa uu leeyahay 30 ilkood. Tan dhaddigga ah sidkeedu waxa uu gaaraa 71 maalmood. Gaduudanaha labka ah ayaa ka weyn tan dhaddigga ah, waxayna badanaa dhashaa 3 ilmood. Gaduudanaha waxa uu ku qaangaaraa 10 ilaa 14 bilood. Xayawaankan wuxuu ka mid yahay xayawaanada leh dhiigga diiran ee loo yaqaano warm-blooded. Sidoo kale wuxuu ka mid yahay xayawaanada aadka u dheereeya, kaasoo saacadiiba jari kara 50 mayl. Gaduudanuhu waxa uu quutaa xayawaano ay ka mid yihiin masaska, cayayaanka, ariga, bakaylaha, jiirka, bahda cawsha yaryar, iyo nooc ka mid a daanyeerada yaryarka ah. Sidoo kale waxa uu ugaarsadaa shimbiraha dhulka ka sarreeya ilaa 3 feet, kuwaasoo ku qabsan karo hab bootin ah. Gaduudanuhu wuxuu ka mid yahay xayawaanada hal caloolayda ah ee loo yaqaano monogastric. Ugu dambeyntii, gaduudanuhu wuxuu caan ku yahay xeeladaha kala duwan ee uu adeegsado marka uu doonayo inuu xayawaan disho, kuwaasoo ka mid ka yihiin gabashada ama isqarinta. Badanaa waxa uu ugaarsadaa habeenkii. Xayawaankan gaduudanaha waxa uu fuulaa dhirta, isagoo badanaa ku nool dhulka geedgaabka ah iyo buuraha. Waxa uu biyaha ka maarmi karaa muddo badan, isagoo biyaha kala soo dhex bixi kara xayawaanka uu disho. Lama hayo tiro-koob rasmi ah oo ku saabsan tirada gaduudanayaasha ee ku nool dunida, balse waxaa la aaminsan yahay inuu ku badan yahay qaaradda Afrika, gaar ahaan dalalka ka hooseeya Saxaraha. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Mahadsanid.